kala isku tuuriyo warmaha waa ku taranaayay marag loo turaanahay annagay taayada noqotay gobonnimadu waa wax loo dhashiyo dhaxal awoowad dhayal lagu helo wariya dhufsashiyo waxaan arkayaa miidhihi oo baroor iyo qunuud la soo fariistay shuruurkii iyo kururkii cabaadweyntii argagixisadii sanam iyo qoliyi xasan munaafiq horjoogaha ka ahaa eegay oo miidiyaha ka bororanaya si toos ah ugu ruqaasanaya bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh kulanti waxaan wanaagsan dhamaan umada Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijka iftiiminta barnaamijka haduu soo gaaro si share garay hadii salaad ku joogtaan u soo tuko hadii kale nabi ku salli allahumma salli ala sayidina muhammad ugu horeyn waxaan rabaa inaan isdul taago qoliyi cabaadweyntaha argagixisadii sanam oo miidhihi qunuud iyo habaar la soo fariistay ilaa Faysal Faaruqoodi ilaa kuwii masaajidada culimada isku sheegi jiray oo faad xanaano sarkaalka laandheeraha ah ee dalkiisa iyo deegaankiisa heeganka u ah shalay labada dhigood cabaadweyn eegay iyo argagixisadii SNM naf iyo maalba furtay horta Faysal Faaruqow iyo cabaadweynay iyo argagixisada SNM ee guriga Morgan kooyday idinka mid baan dirlay wuxuu yiri ninka oo faha weyn la ilmeeyay jacaylka sangub Allah u naxariistay erey aan iraahdo labadiinan aloolna erey aan iraahdo iyo hablaha idilkoodna erey aan iraahdo haatan cabaad weyn iyo argagixisiye waxa weeye aan asta guriga Morgan joogtay Faysal Faaruqooda erey baan oranaya qoliyahan waxa weeye xasan munaafiq horjoogaha ka yahay ee aqligii fadhiistay ee damiirkii beelay ee dadnimadii beelay ee garashadii iyo aqligiiba ay kaga soo hadhay xasan hal difaac igaarkeen waayo iyagana erey baan lay aan ku horeeyo cabaadweynta sarkaalkii sharafta badnaa ee General Fuad Xanaano oo ku dhaawacmay dagaalka ka socda buuraha Puntland ee deegaankiisa iyo dalkiisa iyo deegaankiisa ku difaacanay eegay habeenii maalin heegan u yahay ku dhaawacmay ayaa argagixisadii SNM wuxuu yiri naaxuudayaal iyo kufraad nabiye moodeeneen nacluhu ku fuulay baad daban naslaysaanay nasab hadaatiin gaalada nici lahaydeen nasab hadaatiin gaalada nici lahaydeen warsangeli waa la mishimay warsangeli waa maxamuud harti murcase waa axmed harti ma jeerteen aad ku dawaqday oo ku waalatay waa maxamed harti waa curadkayagii way baladeegi 7 nin oo wada dhashay oo walaal ah iyo waliba cali harti oo wuxuu waaba yaraankiiba wuxuu u dhashay inuu idinka idin feento 8 nin baan u nahay jifi baan u nahay baladeegi kelmadan aatri ergaabo ma la yimaado wuxuu yiri habar ba iska hawle heelada inoo tuma wada hadalba Faysal Faaruqow haadkaas ka haray intaan ka soo jeesanayo argagixisaan adiga ahayn iyo daalin aan adiga ahayn eegay umada Soomaaliyeed horeysiya dambaysa ma yeelan illa argagixisada guriga waxa weeye Morgan fadhida mooyaan oo dal iyo dad iyo diin iyo dhaqan midna aan shaqo ku lahayn baladeegi Faysal Faaruq waa soo fadhiistay inka weynay 70 jirka Faaruqa waa nooca waa 70 jiradoodii waa nooca u hadlaya iyo culimadoodii ku culimada sheegta masaajid mid dhex taagan eegi masaajid buu dhex taagan wixii halka ka dhacay ee umada leynay ee dad la xasuuqay ee la ascaano sideed bloodyaal ku socday mood buu ku jiray maanta soo istaagay ee wala asxaab jooga dagaal xaq ahayn subhanallah maradu kugu olashay oo khamiiskaas ta kugu olol oo kitaabku ku qabay beenaale kadaab ah oo mulxidka ka daran baa tahay mulxidka adiga ka daran wuxuu yiri alla ilaahay dambaa tahay dacar iyo dhunkaal iyo dulun iyo col baa tahay kuwa diintu sheegtay ruux daalina tahay dunjigii fircoon iyo Abu Jahal darkiisii dadka soo haraad ugu hore waxaan rabaa inaan idin daawasiyo oo aad maqashaan laandeeruhu dhalay General Xanaano oo isagoo ay ku taalabaan kuri dhaawaca shacabkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa iyo umada Soomaaliyeed la hadlaya bal hadda eegi ku quuso quraanjo cabaad weynay argagixiso ay ku quusta waa kan faade waliba diyaarad khaas ah lagu qaadaya khaas boyn khaas ah lagu qaadaya bal hadda eegi alxamdulillah rabbil alamin dhaawaca dhibashadu waa calaamadaha guulaha lagu garto insha Allah reer Buntland waxaan ugu baaqayaa cadow ku soo duulay inay meel uga soo jeestaan iska dhiciyaan
geesiyadii aan ka imina waxaan u hambalyaynayaa hawshii tirada badneed daalkaadii hayeen waanu guulaysanaynaa ka harin mayno waa guulaysanaynaa waa sax waa kelmad sax baan cid kasta oo Puntland cadow ku ah waa ka guulaysanaynaa laba isma weydiinayso cid kasta oo deegaan aanu degannahay eegay weerar ku soo qaadana waa ka guulaysanaynaa ninkanaad habaaraysaan abaad weyni SNMA eegay ninkanaad habaaraysaan waa ninkii 25 August bishii 8 2023 naasaha ka soo saaray naasaha wiilkii ka soo saaray eegay ee caanaha ka lisay wiilkii aad kabaha inta labada gashatay aad ka carartay wiilashan meesha maraya waa iyagii isma bedelin eegay wiilasha hartiyadu weeyay baan kuuri ee shalay baan kuuri dhamacda ka waraabiyay ee aad gabdhahaagii ka carartay gabdhahaagii ina adeero waxay ga tagin ina adeero waxay ga tagin maana gabar ina adeertaya gar iyo gardarraba ina adeero waxay ga tagin ka tagi lahaa shalay ninkaad iska daa inaad gabar ina adeertahay dib u egtidaad kabaha labada gacmood ku qaadatay way fuad xanaano wuxuu yiri kadabkii la ii qoray oo wali koonka saaray kacbada horteed inaan go'aa kaafka kuma taaleha karaama seegin habaar leegu kari waay allah uu naxariistay awogaadan carab aniguna waxaan ku leeyahay goobannimadu waa wax loo dhashiyo dhaxal awowaad dhayal laguma helo wariyaa dhufsashiyo xoog yaa inaan gumeed wuxuu yiri shalay weyni soo ogeyn yadan dawladnimo jigamana qabiil isku diri jirnay taariikhdu waa qoranta taariikhdu waa mudan waana jira marxaatiya faysalow afkaagii dhagaha ku hays maqlaan waan isnaqaanaa dawladahoon jirin ayanu reer ahaan u dagaalamayna hoggaan iyo nabadgelyo u baahan yahay taasaan uga shaqaynaa hadda doonaysan tafadalu haddii kale iska qaxninka hadda waa ku macaamaasino Minnesota wada daar ka dhisateeno lacag miyan ka hesheeno Nairobi wada dhisateeno you lived okay laakiin laas aanad waa Soomaaliland ina garaado ma bedeli kartid xadka raga ciidanka qabto waa aragtay laakiin birtaadka wuxuu yiri uftadado haddaad maqasho waa awdo gudahaaga uftadado haddaad maqasho waa awdo gudahaaga Faysal Faaruqow shalay markii aan dawlad jirin oo umada Soomaaliyeed degaan miyi iyo magaalaba la joogay eegay ninka gaal ftadiisa galay ingiriis hadow sidii islaan carmala oo dhowr cisha sidii islaan carmala ku caashaqaya xagee ka dhunkada ingiriis buuriyadiisa haystay horta adigu ha ninka intuu berbera ka soo qaado tunka isagoo ku sida eegay kufri buuriyale isagoo tunka ku sido oo kursiga uu saaran yahay intuu ku kaajo kaadiisu saa uga dareerisatay horta adigu ha ee buurta sheekh saari jiray buurta sheekh berbera intuu ka soo qaado buurta sheekh saari jiray adigu ha ninka maganta u noqdayna adigu ha ninka buuraha la saaray ee buuraha ka soo deg waayay meel banaan iyo caris iyo caws loo diiday adigu ha وهذا الكاتريه انتان دولدنimo intaan imin dadku waa la yaqaan waa runa waa la yaqaan eegay guban baad ku jirtay buuraha guban baad saarnayd fardaha wiilasha harti fuushayina waxay kala qashaafi jireen oo uga nixi jireen eegay qoobka faraska inuu buurta iyo dhagaxa taabto horta taariikh saasaynu ka nahay suugaan iyo sumad iyo xilli iyo joogto iyo marxaati bay leedahay maalinkii ingiriisimi eegay in naftu kugu soo noqotay inaad fuftada ingiriiska gashay inaad buuriyo dhuuq ahayd taa waxaan ka leeyahay kelmadda tiri waa la ogaayo waxba taa ku noqon maayo ku rafan maayo tan ceer gaabo iyo sool iyo sanaag baa soo hadhay social media bararo soo wada fariisateen ceer gaabo maxaa ceer gaabo loo aadi waayay warsan galiyo ma jartano waxa weeye dhulbaxanto dhalfadii odayga harti baad kala salaaxaysaa marba dhinac ka salaaxaysaa warsan galiyo ma jartano alamay maracaso alamay dhulbaxanto dhalfadii odaygay harti eegay niman hal DNA leh eegay dhalfadoodii baad horta kala salaaxaysaa wuxuu yiri ninka loo goleeyo ha iskaaminays karo halka loo goleeyo ha gudubto sheekadu tamar kuuma harin waadna ogtahay in lagu soo socdo oo wallahi in lagu deynin aadan maalin tii joogayn waxa ka karkarinaya oo naftu ku haysa albaab walba soo xidhnay difaac cir iyo dhul abaanu samaynay eegay oo aad ku jirtaa hawsha markaan ka soo falaaxsanana
guriga Morgan in la isku warasanayo aad buu ogid taana taasan ka leeyahay hadalay bakbakhin ha gargariina gaariga cusco eegay is adkay kaadi wuxuu kaadi fulinima aan filanay fik ma ka tiri yaani kaadu ka soo fakan isdaji adiga inta san kulay kan xulay masaajidka ilaahay waxa weeye beenta la taagan ee qabyaalista ay qotiga ay ka dhaadheerna isagana mid baan lay bal hadda eegi kuwa waxa ii soo raaca kuwa ka hadla gobolada bariga laascaano maalinta dagaal dhacaya bay yiraahdeen waa jihaad dhiigii muslimku uu la noqday waxa aad iyo aad u khafiifa waa wadaad waxaad yaxyaxyeynaysaa aad jeedoonaysaa marka ka sheekh lagu sheego nin qof muslim oo walaalkii la in la dilaa waa jihaad dhiigiisa xalaasanaya marka lagugu sheego sheekh ayaad garanaysaa inaan joogno adduunyo gabagaba ah hal maqli jiray heestraada ilka dheerida ma dhulkaad ku qodataay mase waanay ka dhicin ma kuwaad ku dhalataaba qotiyow mid baan adiga ku sheegaya kitaabka ilaahay inaad horta ka been sheegaysid ilaahay ummadiisu waa ku aragtaa qabiyaaladuna inay ku biyo dhigtay waa la arkaa teer iyo maalinkii dagaalku bilowday masaajidkaas dhex taagneed nuud baad ku jirtay maalinkii adeerka la fashiliyay muuse juudaan barida dhulka loogu dhuftay argagixisadii SNM eegay cabaad weyntii aakhir loo diray eegay maantana aanu deegaanadii dhulkayga aanu ku mashquulsanahay oo dhan walba dawladnimadii iyo wanaagii iyo sharaftii aanu gaarsiinin ba soo fariisatay ila argagixisaan idinka hayni ma jirto ma argagixisaan idinka hayn baashta nimanka waxa weeye xasan munaafiq dadka shacabka masaakiinta Muqdisho waxa weeye jooga maalinkaanu idinka dhabiga idin saarnay ba ugu dambeysay Muqdisho dambe oo qayl ka yeedho adeerka Muuse Juudaan qotiga kale Muuse Juudaan baa wuxuu lahaa Soomaaliya iyo Koonfur iyo Waqooyi Muqdisho iyo Koonfur iyo Kismaayo Boosaaso degi mayso ilaa anaga nala fasaxo ujeedaduna sida ma ahayn baladeegi ujeedada aad u jeedaan waxay ahayd inay Hargeysa nolosha dhan Hargeysa timaado oo Soomaaliya inteeda kala dhan ulasho dhaqaalaad ku bixinayseen hanti baad ku bixinayseen ajansiyo kastama u samaysatay tii marka la soo afjaray maanta inaad masaajidka dhexdiisa ka dhex qunuudo oo been ka sheegto kitaabka Ilaahay been ka sheegto qotiyo ka dhaadheer nahabka reer Bani Qurayda ka soo hadhay reer Bani Qurayda baad ka soo hadhay kitaabka Ilaahay iyo diintana been baad ka sheegaysaa nahabad xabayaan cabaadku ka dhamaan taa ka dhamaan is adkay eegay is adkay baan ku iri waa kugu soo socdaay social media bararo soo fariisateen haariga war haariga wallahi waa imanayna oo billahi waa imanayna oo tallahi waa imanayna waniga haada ku maray oo sidii niba baan ku iri fadalkiina geelu ka cabiya geel waa ballantaas adiga intaas ku leeyahay qotiyo intaas kaaga tagaya waxaan soo noqonayaa qolyahan waxa weeye xasan munaafiq ciyaalku adeeradu yahay media ka qaylinaya ee media ka baroonay wadaanti geelida kaafida geel kala ku dartaa deegaankiina iyo dhulkiina iyo hooyooyinkiina iyo maatadiina eegay cid kale badaaba cid kale ha joogtay xasan munaafiq baad ka qaban lahaydeen habeen iyo maalin shacabkii iyo dadkii masaakiinta Muqdisho ku noolaa habeen iyo maalin ee barooranaya aliday ariya igaarkeena waa madaxweynaha waa dal xoreeyo waa daarooda farmaajo taageer jiro waa taageerina aqligiina horta halkaas u fadhiya kuwan cabaad weynta xaq hoosaad ka siixtaan wad ka liidataan xasan munaafiq iyo kooxda fiilla qabiyaala joogtaana Puntland iyo deegaan kasta oo aanu deganahay waa isku dayin inay dabgeliyaan laakiin waa u suuroobi weyd waxay tiri maansadii dhululuba ma weelba daal biyood ma webiba dhururdon ma lacagba sida ay u dhigan yihiin dhibirkooda faalle ummadnimada dhacoray imsaad ka dhigilay waxba suugaan ka garan meeshaan suugaan mid baa la yiri gabay mid Finland joogo Finland ka soo ooyay maartay mid adeerkiisa baa la yiri gabay qasi way yaabare waa dhageystay saacad baan qosliy suugaan kale waxba ka garan meeshide dhululuba ma weelba daal biyood ma webiba dhururdon ma lacagba sida ay u dhigan yihiin iyo ummadnimada dhacoray imisaad ka dhigilay meel fog baan kala hadlaya xayawaan yow madaxu taagan yahay waxa fahmi kartaa maaha waxan kuwa media ka qayliya ee media ka baroonaya ee horgalada ah eegay ee shacabkii iyo dadkii ehelka ahaa ee walaalaha ahaa ee meel ku wada dhimanayay u kala sinaaxaynaya ee FF waxa la yiraahdaa fataalka la yiraahdaa FF ka ah ee u kala sinaaxaynaya waxaan leeyahay waxba yahay baatiin waxba yahay
رفوع القلم باتين أدون وحلا ديك ودين ماي آخرنا وحبا إيدي متشران إذا كي تساندك يا قاب صنية لأن وعلي يفند علم حلال ما مسوى حرام حسكي سابح بالي مركا إنها إذا كي سو هذا قاضو حسكي ناحون guulaysan inaa waana guulaysan jirnay ergaabana wuu soo soconaa burcana wuu soo soconaa hargeysana wuu soo soconaa wuxuu yiri anagoo makiinado duulayo motor wada fushan anagoo makiinado duulayo motor wada fushan oo cadadu naga muuqataan muusoo ku imanay allah ayo waxaanu maaganahay yaa maslixi doona maanta ufta ingiriis aad gashaan ma jirto uftada ingiriis Bristol iyo fadhiya iyo Birmingham iyo London uftadiisa gali karmaysan بلاديجي فيصل فاروق هذا كل هذا يوم سجودان أو دالمين تا جورجا مورجا فريدا فتادي إنجليز نما أنت جلي كريم إنسان إنجليز متشوجو سان إدين إرين شري إيجي أو إدين بعسن شري بان إدين بعسنا يا وده هذا النهاية كسكاري والبرنامج كسي شرقية أو إسكارسية برنامج كلاك تكون بابا ورسني النبادينو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.